بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan subscriberska ku xidhan channelkaygan dalbax technology center dhammaantiin aad baan idin wada salaamayaa. insha allah biidni illaahi kariim hadduu ilaahay allah awoodala inoo ogolaado maanta waxaynu eegi doonaa sidee ayaad u duubi karaysaa screenka shaashadaada. markaa waxaa la isweydiin leh maxaan ku duubayaa, sideen u duubi karayaa. dee waxaad wada fahmaysaa in la isticmaalayo software ama application program. marka applicationka lagu duubaya muxuu yahay baa isweydiin karaysaa. kuweeba ugu fiican oo maxay ahayd la adeegsan karayaa. maxaa ay kuwan kale kuwan uga fiicnaadeen iyo ansoo questions baa isweydiin karaysaa. marka labada the best screen video recorderka ugu fiican, labada application ee ugu fiican screen recorderka ama screenka shaashada lagu duubo, laba application baa ugu fiican anu intaan garanayo aan arkay, oo weliba aad ku heli karaysaa full version bilaa logo, bilaa maxay ahaydey bilaa root aad ku isticmaali karaysaa. weliba no root. applicationada qaar baa jira duuba shaashada laakiin root bay u baahan yihiin. labadan application waa labadan hortiina ka muuqda. mid waxaa la dhahdaa mobisan baa la dhahdaa. kan kale waxaa la yidhaahdaa asad screen recorder. kan kalena mobisan baa la yidhaahdaa. waa the best two apps lagu duuba shaashada inta aan apps arkay. at least waxaan download gareeyay anuu 20 application 20 application oo screen lagu duubo qiyaasaan waan download gareeyay si aan u helo bal screen recorder high definition ku duubaya, HD ku duubaya screenka 1080 pixel ku duubaya, weliba frame ratekeedu 12 pixel yahay. runtii naba caadi maaha. weliba codkana qaadaya sida kana nimka ku duubayo kala. waa asad screen recorder, no loogama leh calaamadii waxaa unlimited time weeyaan labaduba. waxaan ani weliba aada usii isticmaalaa mobisanka, inkastoo asad screen recorder aad isna isticmaali karaysa. labadubana waa free weeyaan. waxaad ka heli karaysaa asad screen recorder waxaad ka heli karaysaa black marketka saad aragtaan kaa weeyaan. fartaydu hadda hayse highlightka madow saaran yahay, calaamadiisana waa isoo tusay sawirkiisa. kaa weeyaan maxaa ahaaday asad screen recorder. aptoidka tag. aniga hadda u install garaysan yahay, aduu soo install garayso. runtii interfacekiisuna aada uma sii adka. waa one click weeyaan. wuxuun bedbedelanaysaa wax saasi badan lama bedelo. wuxuun bedbedelaysaa HD haddaad ku duubayso, haddaad ku duubayso 480 pixel, ama haddaad ku duubayso maxay ahaydey 640 pixel, ama ay bedbedelaysaa. laakiin wax kaloo weyn oo la buuxbuuxinaya ama hawl kala male. interfacekiisu aad buu fududiyey. waana kaa waxaad ka helaysaa black marketka insha allah. black marketna oo taqaanaa baan u malaynayaa. qofkii aan black market maxay ahaydey muxuu yahay iyo waxyaabo noocaasa qaybta hoose ee commentiga insha allah kusoo qoro. isna cashar baan kasoo diyaarin doonaa. black market muxuu yahay, muxuu taraa. kolley waa store, waa sida google play storeka ama aptoidka oo kala. aptoidkana isna cashar baan ka sameeyey, jananku ku jiraa, qofkii doonaya uu daawan karayaa. iyo dee maxaa ahaydey stooro badan oo jira ayuu la mid yahay oo aada uga sii fiican yahay weliba. mar kale insha allah u dhigan doonaa kan. marka waxaana screen recorder wada aragtaa, laakiin asad screen recorder no root
weeyaan weliba. laakiin waxaad ogsoonataa kan no root markuu ku leeyahay wuxuu ku leeyahay a screen recorder is the best app to record the screen of your lollipop. It does not require root access. waa applicationka ugu fiican buu yidhi ee lagu duubo shaashadda mobilkaaga hadduu lollipop yahay. lollipop wuxuu uga jeedaa mobiladu waxay kala leeyihiin OS-kooda iyo versionska ay ku kala duwan yihiin inta badan. oo versionkaagu hadduu yahay 4 hadduu yahay yacni 4 iyo wixii kasii sarreeya intaan 5 la gaadhin maxay ahayday 4.4 4.3 4.2.1 wax noocaas hadduu yahay wuxuu noqonayaa jelly bean baa la idhahdaa. 4.4.4 hadduu yahayna 3 4 isku xiga wuxuu noqonayaa waa kitkat buu noqonayaa. kitkat baa loo yaqaanaa versionka noocaasa. hadduu 5 above something hadduu noqdo 5 iyo wixii kasii sarreeya hadduu noqdo isna waxaa leedahay lollipop. oo hadduu versionkaagu yahay versionka waxaa laga eegaa abood markaad mobilka timaado abood ba soo gelaysa marka settingka timaado deetana waxaad raadinaysaa meesha ku qorantay version baad raadinaysaa. hadda sida aragtaan kayga waxa weeyaan waa marshmallow baa la idhahdaa. waa 6.0.1 weeyaan 6.0 6 something wixii aad u 6 ka sarreeya ilaa inta 7 laga gaadhayo 7 haddii la gaadho nougat baa la idhahdaa. xagga hoose 4.3 4.2 4.1 waa jelly bean 4.4.4 na waa kitkat 5 iyo wixii kasii sarreeyana isna lollipop baa la idhahdaa. 6 something 6.1 waxaa la idhaha iyagana 6 iyo wixii kasii sarreeya ilaa intaan 7 la gaadhin waxaa la iyagana loo yaqaanaa nougat. marka I don't know wallaahi inuu jelly bean inuu duubayo screenka. laakiin mobilada kale inta u badan ay dadku wataan hadda waa lollipop ama waa marshmallow. oo S7 baalkii maxay ahaydee mobiladan dambe oo dhan sida maxay ahaydee A7ka A5ka maxay ahaydee noodadka tirada badan leh Note 2 aan ka ahayn G7ka waxooduba waa marshmallow inta u badan ama lollipop. markaa ku shaqayn doonaa. haddaan kaa intaa kaga imaado ka kalena waxaa loo yaqaanaa waa mobilsan baa la idhahdaa. kan weeyaan aptoidka marka saa usoo furto xaggaa sare waxaad ku qoraysaa mobilsan qaybta searching barka. aptoidna cashir baan ka sameeyey haddaanad garanaynisna janalka dib ugu noqo kabaadh. mobilsan waa kan marka saa ugu qorto linkiga ugu horeeya kusoo baxa xabadda ugu horeysa kugu soo baxdaad ku dhufanaysaa deetana bartaa ka dejiso. aniga hadda open buu leeyahay waa ii dejisanyay. laakiin kan wuxuu kaga fiican yahay ayuu duubayaa screen ama ahaado jelly bean uu duubayaa. anaa taa tijaabo ka qaaday. dee wixii kasii sarreeyana waa guarantiin uu duubayaa. The screen recorder chosen by 40 million users worldwide. waa screen recorderka waxaa isticmaala ama doortay oo ka helay 40 milyan oo isticmaalayaal dunida ku kala nool. marka waad fahmi karaysaa baaxadda uu leeyahay iyo sidoo appkan uu yahay application aada u fiican. marka labada application baan jeclaa in insha Allah idila wadaago. waa aniga Farxaan Dalbaac. insha Allah intan cashar lamid iskugu imaan doono. assalaamu calaykum. channelka haddaan subscribe saar inaad ku cusubtahay subscribe saar. videoga like saar haddaad ka heshid. la wadaag asxaabtaada social mediaha sida Twitterka, Facebook, whatsapp iyo all social media oo dhan. insha Allah wixii fikra ama maxay su'aalaad qabto qaybta commentiga ku reeb ama nagula soo biir groupka whatsappka ee channelku leeyahay oo qaybta linkigiisa qaybta hoose descriptionka isna soo dhigaya linkiga isticmaal haddaad u baahantahay whatsapp groupka ku soo biir.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.